kula wanaagsan halkani waa warbaahinta cusub qodobada aan leeyahay waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu baxay dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa casuumad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa ka baxay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadacadda ee magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa ka wada hadli doona xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dawladood amniga ganacsiga iyo iskaashiga miradhalka ah ee labada dal wadaagaan safiirka Mareykanka Larry Andrew ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu ka aaminsan yahay in uu leeyahay hal xuduud isla markaasina ay ka wada hadlayaan dawladda Soomaaliyeed safiirka ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday magaalada Minneapolis oo qayb ka ah dabaaldegga xuska xorriyadda Soomaaliya oo socday toddobaadkan danjire Andrew waxa uu sheegay in aqoonsiga wada hadallada meeqaamka madaxtinimada in ay tahay in ay si gaar ah ugu go'aamiyaan Soomaaliya iyo Somaliland asagoo xusay inuu wax walba ka bedeli doonin siyaasaddiisa ku aadan Soomaaliya oo hal dal ah wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha dibadda mudane Balaal Maxamed Cusmaan ayaa ka dalbaday wadamada jaamacadda Carabta in Soomaaliya la garab istaago taageero siyaha wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiiru dawlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane Balaal Maxamed Cusmaan ayaa taageero ballaaran ka dalbaday wadamada jaamacadda Carabta asagoo ka qayb galay shirka iskaashiga wasiirada arrimaha dibadda wararkeena dibaddana waxa kamid ah mudaharaadyo xiriir ah ayaa ka dhacay dalka Suudaan kuwaas oo lagu dalbanayo in la bedelo awoodda military oo sanadihii dambe xukunka la wareegtay iyo in dib loo soo celiyo xukunkii rayidka ahaa fada ka tirsan magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan tirad kamid ah degmooyinka ku yaala magaaladaas ayaana si weyn looga soo banaan baxay guud ahaanba waxa intaas noo warkii koobnay oo aad kala socoteen warbaahinta cusub